Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu asxaabteena aan jecelnahay kusoo dhowaada barnaamijkeena faaqidaada cayaaraha qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid a waxaa caawa dib u bilowday tartanka Champions League ee horyaalka qaaradda Yurub. Kulamo xiiso iyo xamaasad badnaa ayaa ka dhacay. Kooxda Barcelona iyo kooxda PSG ayaa wada ciyaaray. Sidoo kale waxaa wada dheelay kooxaha Liverpool iyo RB Leipzig. Kooxda Barcelona oo marti loogu ahaa garoonka Camp Nou ayaa waxaa lagu xasuuqay garoonkeeda ciyaar looga badiyay 4-1. Kulankaasuu go'aamiyey ciyaaryahanka da'da yar ee reer Faransa Kylian Mbappé. Kooxda Barcelona ayaa ciyaarta kusoo gashay shax aad u adag, halka kooxda PSG uu ka maqnaa xiddigooda ugu saameynta badan ee Neymar, kaas oo dhaawac halis ah uu kasoo gaaray kulamadii ugu dambeeyay ay dheeshay kooxda Paris Saint-Germain. Ciyaartan oo kusoo dhamaatay 4-1 ayaa furitaanka goolasha waxaa bilaabay kooxda Barcelona kadib markii lagu abaalmariyay rigoore. Rigooradaasuu gool u bedelay kabtankooda reer Argentine ee Leo Messi. Hase yeeshee inta Camp la kala aadin ayaa ciyaarta waxaa goolkaas ka daba keenay oo 1-1 ka dhigay ciyaarta ciyaaryahan Kylian Mbappé. Hase yeeshee kooxda Barcelona ayaa burburkeeda waxa uu bilowday markii laga soo laabtay kaambiyadii dambe, markaasuu xiddiga reer Faransa ee Kylian Mbappé uu burburiyey kooxda Barcelona uuna ka dhaliyay 2 gool oo kaleeto, halkaas uu Kylian Mbappé ku dhamaystirtay saddexleydiisii goolasha, kubadiina lagu siiyey xiddiga reer Faransa oo ay u ahayd habeen aad u wanaagsan. Goolka saddexaad waxaa dhaliyay ciyaaryahan Kane oo ugu jooga kooxda PSG si amaah ah. Inta uusan goolka afraad dhammaystirin ciyaaryahan Kylian Mbappé, goolkaas oo ahaa gool xagal ah oo aad u qurux badan oo boortiyeeriga kooxda Barcelona uu waxba ka qaban waayey. Haddaba ciyaartan oo xiiso lahayd ayaa waxaa lugteeda labaad lagu dheeli doonaa garoonka Paris Saint-Germain, kulankaasoo u eg in ay kooxda Barcelona macasalaameyn doonto xilli ciyaareedkan Championka. Sidoo kaleeto waxaa dheelay kooxaha Liverpool iyo kooxda RB Leipzig ee Jarmalka, kuwaas oo ay u egtay hadda kooxda Liverpool in ay hal lug la sii gashay sideed dhamaadka Champions League kadib markii kooxda Liverpool oo ayaamahan ku jirtay xaalad aad u adag oo horyaalka Premier League ah ayaa waxay caawa soo gabagabaysay guuldarrooyin xiriir ahaa oo kooxdaas ku dhacay. Kooxda Liverpool oo si wanaagsan ku bilaabatay horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan ayay haddaba waxay u muuqdaan kuwo horyaalka macasalaameeyey oo awoodooda iskugu geyn doono dhanka Champions League, sababtoo ah kooxda sanadkii hore ku guuleysatay horyaalka Premier League ayaa kooxda Manchester City oo ciyaari doonto habeenka Arbacada kulan baaqi u ahaa ay la dheeleyso kooxda Everton, ayaa haddii kooxda Manchester City kulankaas badiso waxaa horyaalka looga hayn doonaa Liverpool 16 dhibcood. Sidaas darteed kooxda Liverpool sanadkan waxay awoodda iyo mudnaanta saareysaa waa koobka Champions League ah, kaas ayayna caawa waxa ay ku badisay 2-0 ayadoo goolasha ka kala heshay xiddigaha kale ah Sadio Mane iyo Mohamed Salah. Kulanka dambe ayaana waxaa loogu imaan doonaa garoonka Anfield. Kulamadii caawa la dheelay ayaa waxa ay kusoo dhammaadeen kooxda Barcelona oo looga badiyey 4-1 iyo ayadoo guusha ay ku raacday kooxda Paris Saint-Germain. Ciyaaryahan Kylian Mbappé uu caawa wacdaro ka dhigay garoonka Camp Nou asoo taariikh saddexley ah ka dhaliyay kooxda Barcelona. Da'yarka reer Faransa oo xilli ciyaareed aad u wanaagsan ku qaadanayo caasimadda wadanka Faransiiska ee Paris Saint-Germain ayaan ogaan doonaa halka uu isla maraan asiga iyo kooxda Barcelona kulanka markii la tago garoonka PSG, ayada oo Neymar ka maqnaan doono sida la saadaalinayo inta ka dhiman ciyaaraha xilli ciyaareedkan. Kooxda Liverpoolna caawa waa ay badisay oo waxay ku badisay 2-0. Kooxda Liverpool haddii macasalaameysay horyaalka Premier League oo ay hadda rajo badan ka qabin inay u tartanto may ku guuleysan doontaa Championka. Taasna waa xaggiina wixii aad
ra'yi iyo tusaale aad ka qabtiin commentiga noogu soo reeba. Haddii Barcelona ayadana Camp Nou looga badiyay 4-1 soo laabashadii lagu yaqaanay miyay suubin kartaa sanadkan oo xaalad kala guur ah ay ku jirto kooxda Barcelona? Ayadana wixii ra'yi iyo tusaale ah commentiga ayaad noogu soo reebi kartiin. Tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mid ah. Fi amaanillah.